بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسكن wuxuu ku saabsisay mowduuca رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، waa xadiis ka mid ah axaadiista nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam ka sugan. haddaan xadiidka iyo riwaayaadkiisa qaar ka mida akhriyo, imaamu muslim raxmatullaahi calayh wuxuu kitaabkiisa ku soo saaray ibnu cabaas isagoo ka warinaya inuu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam: daaqa طacma aliimaani man radya billaahi rabba وبالإسلام diina وبمحمد rasuula. waxaa dhadhamiyey iimaanka macaankiisa qofka alle subxaanahu wa tacaalaa rabbinimo raalli uga noqda, islaamkana diinnimo raalli uga noqda, u raaca, ugu dhaqma, nebi moxamedna calayhi الsalaatu wasalaam rasuulnimo raalli uga noqda. xadiidkaasi wuxuu ku tilmaamayaa daaqa طacma aliimaan. imaamu muslim raxmat ullaahi calayhi wuxuu kaloo ka soo saaray can sacdin ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh waalih wasalama qaal: man qaala xiina yasmaci اlmu'adina wa ana ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh raditu biاllahi rabba وبالإسلام diina وبمحمد rasuula gufira lahu ma taqadama min denbih. xadiidka kanoo isna imaamu muslim wariyey, imaamu axmed iyo abu daawuud iyo tanasaa'i iyo keyrkoodba ay soo saareen. wuxuu kaloo nebiga ka sugan calayhi الsalaatu wasalaam inuu yidhi qofka yidhaahda marka uu mu'adinka maqlo, mu'adinkaoo aadaamayo tashahudka soo gaadhay markuu maqlo, qofka isaguna yidhaahda markaasi, ma markaasaa la odhanaya mise aadaanku markuu dhammaadaabaa la odhanayaa? labada qowlba culammadu waa leeyihin, ama labada tafsiirba. qofka yidhaahda wa ana ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh, qofka isna yidhaahda mu'adinka gadaashiye aniguna waxaan ka markhaati kacaya alle inuu keligii ka xaq lagu caabudo yahay, cid lagu lamaaneeyana inaanay jirin ama wax lala wadaajiyaa, nebi moxamedna calayhi الsalaatu wasalaam inuu alle rasuulkiisii iyo addoonkiisiiba yahay. intaa intuu yidhaahda raaciyo markaa raditu billaahi rabba وبالإسlaami diina وبmuxamedin rasuula, allaan rabbinimo raalli uga ahay, islaamkaan diinnimo raalli ama u qaatay, nebi moxamed baan rasuulnimo raalli uga ahay. qofka yidhaahda, riwaayaddanina waxay leedahay gufira lahu ma taqadama min denbih, dembigiisa wixii tegay oo dhan ilaahay wuu ka dhaafaa. imaamu abu daawuud wuxuu kaloo soo wariyey inuu leeyahay man qaala qofka yidhaha raditu billaahi rabba وبالإسlaami diina وبmuxamedin rasuula wajabat lahu اljanna. sheekhi albanina raxmat ullaahi calayhi uu silsiladiisa saxiixaa ku soo saaray. qofka yidhaahda ilaahay baan rabbinimo raalli uga ahay, islaam baan diinnimo raalli uga ahay, nebi moxamed baan rasuulnimo raalli uga ahay, qofka yidhaahda wajabat lahu اljanna, janno ayaa u waajibtay. waxaa kaloo sheekh alalbani uu saxiixada ku soo arooriyey oo kale: man qaala idaa asbax, qofka yidhaahda markuu waa bariisto subxi raditu billaahi rabba وبالإسlaami diina وبmuxamedin nabiya, weedhaa qofka yidhaahda inuu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam faana الzaciim laaakhdanna biyadihi xataa udkhilahu اljanna, laaahudan, inuu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam anaa wakiilu ah, gacanta intaan qabtaa baan jannada gelinayaa buu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam. waxaa kaloo nebiga ka sugan calayhi الsalaatu wasalaam say culammada bar tilmaamayaan xadiid ibnu maaja, imaamu axmed, abu daawuud, tirmidi, nisaa'i iyo keyrkoodba warinayaan. ibnu xajar alcasqalaanina uu leeyahy sanadkiisu waa xoog badan yahay, asheekh alarnaawuutina uu leeyahy waa saxiix ligayri, inkastoo sheekh alalbani raxmat ullaahi calayhi isagu tadciifinayo. waa xadiidkana adkaarta ku aragtaana leh: maa min cabdin muslimin yaquulu xiina yusbix wa xiina yumsi 3 maraat. ma jiro
muslima oo markuu waabaristo ama galabaysto 3 jeer yidhaahda allaan raalli uga ahay rabbinimo islaamnimaan diin raalli uga ahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam baa nebinimo raalli uga ahay ilaa kaana xaqan cala allahi an yurdiyahu yowma alqiyaama ilaa iyo alle subxaanahu wa tacaala wuxuu isku waajibiyey maalinta qiyaame inuu raalli geliyo xadiidka kan markaan riwaayaadkiisa aan isku darro wuxuu tilmaamayaa kow inuu nebigu ku sifaynaya calayhi salaatu wasalaam weedhaa qofka yidhaahdaa inuu iimaanka macaankiisa dhadhamiyey waxaa kaloo uu tilmaamayaa weedhaa qofka yidhaahda in dembigiisa hore la dhaafayo waxa uu ku tilmaamayaa weedhaa qofka yidhaahda inuu janno gelayo waxa uu janno u waajibtay waxaa kaloo tilmaamayaa weedhaa qofka yidhaahda nebi moxamed inuu wakaalo siinayo ama u damaano qaadayo inuu janno geliyo wuxuu kaloo xadiidku tilmaamayaa weedhaa 3 jeer gelin dambaba ninkii yidhaahda maalinta qiyaame in ilaahay raalli gelinayo waa 5 mas'alo oo 5tuba khayr ku jiro oo uu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasi ku sifaynaya ninka yidhaahda weedhaha kan raallinimo alridaa waa rida alqalb waa qofku qalbigiisu uu ku xasiloon yahay ku degan yahay yaqiinsan yahay rumaysan yahay ku faraxsan yahay ku qanacsan yahay tala saaranayo inuu alle rabbigii yahay cagsigeedu waa maxay waa qof walwal iyo warbahaar iyo murugo iyo qalbi jab iyo dareen xumo ay ka hayso alle subxaana wa tacaala amase ilaahay subxaana wa tacaala khilaafa maa huwa ahluh u malaynaya weedhatan waxa ay tilmaamaysaa 3 jumladood waa 3 jumladood jumlada koowaad waa raditu billaahi rabba sida macruufkaa culammadu waxay yidhaahdaan inta badan masaa'ilu tawxiidka marka laga hadlayo mas'alat aluluuhiya oo cibaadada ku tacalluqda ama ku saabsan ayaa inta badan laga warramaa laakiin xadiidka kani wuxuu tilmaamayaa lama odhanin man radiya billaahi ilaahan aw macbuudan ee waxaa la yidhi man radiya billaahi rabban qofka alle raalli uga noqda rabbinimo alrabb wa huwa sayidu almaaliku almeliku almudabbir waa ka wax maamula ee hanta ee boqortooyada leh ee tadbiirkeeda iyo maamulkeeda xukuma dunida tan arrintan macnaheedu waxa weeyaan qofka markuu waabariisto qira ee yidhaahda ilaahu dunidan inaad adigu maamushaa baan raalli ku ahay uu u bariyo qira ana lilkowni rabba dunida tani ilaah ku tasarufa inuu leedahay inaanay cid kale gacantiisa ku jirin callaan iyo fulaantoona inaanay gacantiisa ku jirin inuu rabbi subxaana wa tacaala dunidan xukumo oo maamulo oo shay walba halkuu ku suuban yahay dhigo walow adigu mararka qaarkood xikmadda waxaasi u dhacayaan xataa garan waaye waayo waxaad qiraysaa adigu dunidan inay leedahay rabbi xikmad badan oo cilmi badan oo khibrad badan oo wax waliba siduu ku habboonaa u wada adigana waxaad qiranaysaa markaa inaad addoon tahay oo waajibka ku saaranay inuu yahay inaad hoggaansanaato maamulkiisa iyo taladiisa iyo tadbiirkiisa iyo managementkiisa inaad aqbasho oo markaasi aad la timi hoggaansani arrintani waxay ka tilmaamaysaa masaa'il waaweyn oo caqiide ah oo ah kownkan cid kale inaanay ku tasarufin laa awliyaan ku tasarufin walaa bashar baan ku tasarufin walaa dowlad xoog weyn baan ka talinin waxaa ka taliya rabu الsamaawaati wاlard waxay kaloo dhan kala tilmaamaysaa mas'alaة اlqadaa'i wاlqadar inuu qofku rumaysan yahay waxaan alla doonin inaanu dunidan ka dhicin waxaan alla doonin inaanu dunidan ka dhicin waxaa kaloo masaladan ay markaasi tilmaamaysaa qofka mu'minkii inuu rumeeyo wa anna ilaa rabbika almuntaha wa annahu huwa adxaka wa abka wa annahu huwa amaata wa axya alle subxaanaه wa tacaala inuu isagu yahay ka wax ka qosliya ee wax ka oohiya waxaa lagu farxaana inay xaggiisa ka yimaadiin waxaa la dhibsanayaana inay xaggiisa ka
وأنه هو أمات وأحيا ربي إنه يي سبحانه وتعالى كوحد له كوحنا نوليا قعنتي سيني كتشر تجيريدو قعنتي سيني كتشر تنولشو waxa inaga layna faray markaa inaynu masaa'ilkaasi rumaysanno oo yaqiinsanno raalli ku noqonno walidaalika buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray waas'aluka alridaa bacda alqadaa xadiidka nasaa'i iyo ibnu xibbaan bay warinayaan waas'aluka alridaa bacda alqadaa ilaahay waxaan ku weydiisanayaa inaan raalli ku noqdo markaad wax xukunto gadaasheed tani waxa ay sheegaysaa inaad qirato qofka mu'minka ah hadduu garto dunidan rabbi maamulaa inuu leeyahay adigu acmaashaada mas-uul baa ka tukado aakhiro waa lagu weydiinayaa laakiin kownka kani ma aha meel alle intuu subxaana wa tacaala iska ilaabay wixii gaal doono wixii cid kale doonta uu ka dhacayo iska socsocdo dad kale ku tasarrufayna saa u socda ma aha qofka mu'minkii waa qof qiray markaasiyo rumeeyey markii waagiisu u bariyey ayuu wuxuu ku dhawaaqay caqiide ah ilaa u tanaadaa ka taliya cid kale taladiisu kama socoto ilaahay taladiisana raalli baan ku ahay laa ictiraad waayo waxaan rumaysanaya inuu xakiim yahay oo caliim yahay oo khabiir yahay oo raxiim yahay oo waduud yahay haadihi sifaat baad ilahay u rumaysantay cidna inaanu dulminin laysa bidallaamin lilcabiid qofna inaanu alla dulminin addoomihiisa ka mid ah wax waliba halkay ku habboon yihiin inuu dhigo xikmad inay ka dambayso wax kastoo dhacaya cilmi inuu isagu u saaxiib yahay khibrad inuu saaxiib yahay shayga taariikhtiisii hore tagtiya tiisa soo socdaiyo tu hadda joogaba uu og yahay lugayb inuu yahay wa axaata bima ladayhim wa axsaa kula shayin cadada wuxuu qofka mu'minka rumaysan yahay waxa dadka agtooda yaalloo dhan inaa la koobay wa cindahu mafaatixu lgaybi laa yaclamuha ilaa hu mafurayaasha qaybka oo dhan inuu alle gacantiisa ay ku jiraanoo cid kale aanay ogayn wayaclamu ma fi lbari wاlbaxri wama tasqutu min waraqatin ila yaclamuha walaa xabatin fi dulumaati اlardi walaa raطbin walaa yaabis ila fi kitaabin mubiin qofka mu'minkii markaa nebigu wuxuu ku tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam axaadiistii ka asaxday cajaban liamri اlmu'min waxa yaab leh arrinta qofka mu'minka ah waayo arrinkiisoo dhammi waa khayr buu nebigu yidhi hadday wanaag uu haleeliyo nicmo wuu sabraa hadday wanaag iyo nicmo uu haleelo wuu ku mahad celiyaa fa kaana khayran lah haddii dhib iyo mashoo gaadhana waa sabraayo waa adkaystaa oo jazac iyo walwar iyo halac kuma dhaco fa kaana khayran lah labada goorba waa u khayr waayo warwarki iyo halacu sifo qof mu'mina maaha sidaa awgeed baa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay waxyaabuu ka magan geli jiray waxaa ka mid ah warwar iyo tiiraanyo iyo murugo iyo walbahaar allahuma inii acuudu bika min alhami waalxusn xadiidkii saxiixaynka ku yaallay ilaah waxaan kaa magan gelayaa warwar iyo walbahaarka iyo tiiraanyo iyo murugada waxa uu nebigu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam maa yusiiba almar'a min nasabin walaa wasabin walaa hamin walaa xusnin walaa adan xata shawka yushaakuhaa ilaa kafara allahu bihi khataayaa saxiixaynku xadiid ku yaalla qofka mu'minkaa ma haleesho dhib wax mashaakiliba ma haleelaan qodax baa ugu yaroo ma muddo ilaa iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala dunuub buu kaga ridaa idan qofka mu'minkii wuxuu caqiidaysan yahay rabbigii dunidan iska lahaa inuu tala saartay waayo ilaahay hayrkii wuxuu ku tilmaamayay mathalu aladiina اtakhaduu min dunihi awliyaa kamahali اlcankabuuti اtakhadat bayta waina awhana اlbuyuuti labayt اlcankabuut kuwa ilaahay hayrkii sokeeye iyo kuwa la tala saartay oo ka dhigtay waxay ku tiirsadaan wuxuu la mid yahay baa ilaahay yidhi kamahali اlcankabuuti اtakhadat bayta caaradii sbayder caaradii buulka samaysatay waabka yar buul caareed muxuu celin waina wahana albuyuuti labayt alcankabuut baa ilaahay yidhi guri la dhistayna guri caaraa u jilicsan qadiyaddan si aynu u fahmnaan dhinac kale ka eeg inaynu qiranno oo garanno
alla inuu rabbiga dunida tan yahay. laba qisaynu sharxaynaa, dabeetana waxaynu garanaynaa ilaahay siduu dunida tan u maamulo iyo waxa innaga inaga waajibay ee laynaga rabo. qisa waa qisatu lisraa waalmicraaj. waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam in la dheelmiyey lana gudiyey, habeen in la soo dheelmiyey oo maka laga keenay ilaa iyo bayt ilmaqdes la keenay. waa almost 1 kilomitir ama wax ka badan, maka ilaa iyo falastiin bayt ilmaqdes laga soo gaadhayo. isla habeennimadii ayaa laga qaaday meesha tan oo waxaa la qabadsiiyey fowqi 7 samaawaat. meel durugsan baa la geeyey, meel aan weli technologyga bini aadamku maanta u haystaa aanu gaadhin, rajaynayna inuu gaadho. waayo gantaalka la diraa markay yidhaahdaan intaas oo light 1000 sano maxaa la yidhaha light years, intaasoo lightku wuxuu socdaa bay yidhahdeen beer second 3,000 kilomitir, dabeetana masaafo uu sanad socon karo. ifku hadduu secondkii jarayo 3,000 kilomitir, sanad imisuu ku jarayaa? yacni daqiiqaddii baa 60 second ah. 60 second 3,000 ku dhufo 180,000 kilomitir ayuu jarayaa. maxay 1 minute? maalintii imisuu jaraya markaa? sanad imisuu jaraya? masaafada uu sanad jari kara marka lagu xisaabiyo ayaa la yidhahdaa intaasoo light year buu waxaas inoo jiraa. ta macnaheed waxa weyaan gantaalka la diree bini aadamku diraa, duniduba waxay xaaqbaysaa intuu iska sii socdo. kaanu meel barso kaba gaadhin ayay dhammaanaysaa dhammaanteed. 100,000 sano 100 sano marka la yidhaahdo, kuwii diray daaye iyo kuwa fuulay iyo wax loo diray toona intaanu meel gaadhin baa caalamku tirtirmaya. laakiin ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahy nebi maxamed waxaan ka kaxeeyey maka, waxa aan geeyey bayt almaqdis. subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xawlah. maxaa loo kaxeeyey? maxaa looga keenay halkan halka loo geeyey? ilaahay wuxuu leeyahy linuriyahu min aayaatina inahu huwa الsamiicu اlbasiir. inahu الsamiicu اlbasiir. ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyay nebi maxamed waxaan uga kaxeeyey maka ee bayt ilmaqdis u geeyey, ee habeen qura loo guuraysiiyey, ee geenye yara bahal yaroo baraaq la ydhaahdo loo saaray, linuriyahu min aayaatina. cajaa'ibtayda inaan wax ka tusiya baa ilahay yidhi subxaanaه wa tacaala. intaasi waa israagii. micraajkiina ilaahay muxuu yidhi? ra'aahu nazlة أkhraa cinda sidraة اlmuntaha cindaha jannaة اlma'wa id yaksha sidraةa maa yaksha maa zaaqa اlbasaru wamaa طagىa laqad ra'aa min aayaati rabbihi اlkubraa. rabbi markii la dheelmiyeyna wuxuu ku tilmaamayaa meel aan basharku cid makhluuqaadkuba tegin inuu tegey. meeshaa uu tegey baa ilaahay leeyay maa zaaqa اlbasar wamaa طagىa. ishu ma weecan, ma qooqinoo ma xadgudbin. maxaa dhulkaa meeshaa fog loo geeyey? ilahay wuxuu leeyay laqad ra'aa min aayaati rabbihi اlkubraa. aayaadka rabbi ee waaweyn baa lasoo tusay baa la yidhi. ilaahay awooddiisa wax laga tusay. nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam ilaahay awooddiisa ayaa wax laga tusay. idan qisaة اlisraa iyo qisaة اlmicraaj waxa tacliil u ah bay culammadu leeyihin linuriyahu min aayaatina. micraajkana waxaa tacliilu laqad ra'aa min aayaati rabbihi اlkubraa. nebi muuse calayhi الsalaatu wasalaam maalan markii nebinimada loo dirayey waxaa la yidhi wamaa tilka biyamiinika yaa muusa. waana la garanayay, su-aashana waa la weydiiyey wamaa tilka biyamiinik, si aanu u riyoonba. muuse u maxaa gacanta kuugu jiraa la yidhi. dabeetana wuxuu yidhi waa u shaydiyo waa ku tukabaayo caynkan baan ku sameeya wakaa ushiibuu sharax ugu dhaqaaqay inuu xaq hubiyo waxaanuu gacanta ku sitaa inay ul tahay. ilaahay wuxuu ku yidhi subxaana wa tacaala tuur. markuu tuuray bay carcararto bahal noqotay, waa baqa galay. waxba ha cabsoon baa la yidhi, qabo haddana gacanta halkan geli baa la yidhi. wuu geliyey, ka soo saar baa la yidhi, waaba midab kale waa caddaatay. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi linuriyak min aayaatina alkubraa. waxaanu sida tan u yeelay inaanu ku tusinno aayaadka iyaga waaweyn. ee idhab ilaa fircawna inahu طagىa. fircawn qabo waa qooqaye, makhluuqa agtaada ayuu ku weynaanin,
rabbiga weyn awooddiisa wax lagaa tusaye fircoonkan le ana rabbukumulaclaa wax sheegi maayo orad u tag baa la yidhi haddaba ayaa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala markii khawaariq la tusay nebi muuse oo loo tilmaamay ilaahay subxaana wa tacaala awooddiisa ayaa ilaahay wuxuu ku yidhi nebi muuse orad u tag haddaba kan kibray idhab ilaa fircawn innahu tagaa markay wax sheegeenna ilaahay wuxuu ku yidhi innanii macakuma asmacu wa ara ilaahay ow cid baanu ka dillo waxaanu ka cabsanaynaa inay nagu xadgudbaana waa ka ilahay wuxuu ku yidhi anigu waanan maqlayaa waanan arkaya adduunka waxa ka dhacaya igama qarsoona whatsoever dunida ka jira waan ogahay waan maqlayaa waan arkayaa baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala yasoco kaasi waa qisat اlisraa wاlmicraaj ilaahay wuxuu nebi maxamed tusay awooddiisu intay laagtay mar kale waxaynu ku noqonaynaa qiso labaad oo nebiga ku dhacday calayhi الsalaatu wasalaam nebi maxamed oo gaala u tashatay oo dil lagu xukumay oo firdhanayo baxsiya muxuu sameeyey waa hijradii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam goor duhuruu baxay cadceeddu kulushahay waa hagoogtay waa isqariyey abubakar buu meel yar uga galay waa israaceen waa xaggii madiine may qabana koonfur bay u dhaqaaqeen si ay u raad gataan oo meeshay qabanayaan aan loo helin buuraley bay koreen si aan raadkooda loo soo heli karin god bay galeen si raadcad ay isaga reebaan oo muddo ay ku jiraan godka intii ay ku jireen ayaa layse soo dultaagay waa abubakar yidhi laa ilaahay rasuulkiisiiyo haddee gomadahooda eegaan wayna arkayaan ou nebigu yidhi laa taxzan ina allaha macana waxba ha ka murugan ha baqan ha cabsan ilaahay baa inala jira rabbiga dunidan hadduu kula jiro bashar isu tegtayo waxba ha ka baqin buu nebigu ku leeyay calayhi isalaatu wasalaam haddana nebi maxamed makiya madiine dhexdooda dhowr iyo 10 maalmood buu lugeynayoo la eryayey oo maxaa nebiga inta maka looga dhufto uun loo dhigi waayey madiina ilaa awalba baytul inta maka laga dhuftay ayaa habeen qudha la geeyey maxay baytulmaqdis oo laga sii qaado la geeyey samaawaadka sare oo laga soo celiyo lagu soo celiyey baytulmaqdis oo laga keenay oo maka la keenay oo carabtii markay dafireen ay weydiiyeen siduu u eg yahay meeshaan atay ilaa haddii halkan toosa looga diray waxay weydiiyaanba may garteene siday baytulmaqdis u egyo uga warramay albaabadeediiyo see u egyihiin oo la weydiiyey awrtayada iyo safarka eega xaggay soo socda oo uu ka warramay inay halkaas soo socdaana uu reebelu horreeyo caynkan u horreeyo waxa kan horreey nebigii sidaa loo dhuftay markan lama dhufanin soco baa la yidhi waa rafaaday waa haraadeen waa gaajoodeen waa la eri baqogeliyey fardoolay markii dambe soo eryatay suraqata bnu malik uu ku soo baxay abubakar haddana yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo uleyna soo gaadho u nebigu mar kale ku yidhi laa taxzan ina allaha macana ha murugoonin ilaahayba macinaahe labadan qiso maxay tilmaamayaan waxay tilmaamayaan kow inaad caqiidaysato ilaahay subxaana wa tacaala inuu isagu dunida tan maamulo wuxuu doonana inuu ka yeelo kana maqnayn inuu ku leeyay nebiyadiisii anaana arkaya maqlayana nebi muuse innanii macakumaa asmacu wa araa idan qofka mu'minkaa waxaa laga rabaa inuu subaxii markuu soo kaco yidhaahdo radiitu billaahi rabba ilaahay baan rabbinimo raalli ugahay dunidan isagu maamulo cidina la maamulin cidina la saytarayn baan qirayaa inuu mas'aladaasi yidhaahdo ka labaad ee qisadan inoo faa'iidaynaysa waxa weeyaan in adna lagu baro waagaaga inaad fuliso haddii lagu itixaamo haddii lagu la cageeyo haddii lagu caafimaadiyo hadday dhiba ku qabsato kullaha waa nooc min alimtixaanaat adduun baa la eegayaa bal hadda imtixaanaadkan si aad uga jawaabtee ilaahay subxaana wa tacaala waxba kumaha wax walba inuu sida fiican adiga kuugu dhigo saad sileeday waa fiican tahay ilahay wuxuu leey war meeshaan anaa maamula laakiin idinkan waa idin itixaamaya haddaa wanaagsanaataanna waa idin jannaynaya haddaa xumaataanna waa laydin cadaabaya ilahay qur-aanka wuxuu ku leeyay low yashaau allahu lantasara minhu war ilaahay hadduu doonayo gaalo waa ka xoog badin lahaa waa ka guulaysan lahaa baa ilahay yidhi low yashaau allah rabbi hadduu doonayo lantasara minhu waa ka guulaysan lahaa walaakin liyabluwa bacdakum bibacd se muxuu doonay liyabluwa bacdakum bibacd in la isku keena itixaamo baa loo dan leeyahay baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala dunidan anaa maamulaa ilaahay leeyay waxaan doona ka dhici maayo gaal iyo cid kastaba haddaan doono waasaan dullayn karayaa
laakiin waxa aan doonay baa ilaahay leeyahay inaan isku kiin itixaamo wajacalnaa bacdakum libacdin fitna atasbiruun kooxba kooxda kalaan waa isku kiina itixaamo bal waa isku kiin eegayaa bal meesha aad istaagtaan baan eegayaa baa rabbi leeyahay imtixaan baan isugu kiin geliyey maayo atasbiruun baa ilaahay leeyahay bal inaad sabri kartaan inaad adkaysan kartaan tan baan eegayaa idan caqiidatuna waxay ka bilaabantaa ikhwatii fi lcaqiida dadku waayadan dambe sibay u baqeen sibay u moodeen cid kale dunida saytaraysay sibay u moodeen cid xoog badatay sibay caynkaas sibaa caqiidadii rasmiga ahayd uga sii baaba'aysaa sibaa ya'si iyo quusi ugu jirta sibay isleeyihiin duniduba isbedeli mayso laakiin rabbi wuxuu ina leeyahay waxaa iimaanka macaankiisa dhadhamiyey siduu nebi moxamed ka warinaya calayhi salaatu wasalaam iimaanka macaankiisa waxaa dhadhamiyey waxaa dembigiisa la dhaafayaa waxa ay u waajibto oo rabbi uu ballan qaaday waxaa rabbi ballan qaaday maalinta qiyaame inuu raalli geliyo waxaa nebi moxamed yidhi anigaa u damiina inaan gacanta qabto ilaa aan jannada ka geliyo kuma man radiya billaahi rabba cidda raalli ka noqota alle inuu rabbigii yahay subxaanah wa tacaala oo intaha alamr xadiidka qaybtiisa labaad inagoo wakhtiga ilaalinayna waxaa layna yidhi wabilislaami diina wabilislaami diinan waa maxay an tastaslim waa inaad hoggaansanaato markaa isdhiibtid inaad garatid rabbigii dunidan maamulayay waxa raalli gelinayo inaad samayso inaad garatid wuxuu ku amray inaad fuliso inaad garatid wuxuu kaa reebay inaad ka roobtoontid inaad garatid imtixaan baad adigu ku jirtaaye imtixaankaaga jawaabtiisuna inaad dhiibto ayan kaan imtixaankaagu ha noqdo ardada dugsiyada iyo iskuullada iyo jaamacada ayaa wax ka dhigataa ninba heerkaan leegunbaa loo dhiibaa mid imtixaan fudud loo dhibo mid imtixaan adag loo dhibo biqadri iimaanihi baan dadka itixaamaaba allaynanayna yidhi nebi moxamed wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam dadku waxay u kala imtixaan adag yihiinba siday u kala iimaan badan yihin alamthal falamthal ayuu nebigu ku tilmaamaya alambiyaa baa ugu imtixaan adag dabeetana alamthalu falamthal tan macnaheed waxa weeyaan qadiyadda labaad ee lagaa rabaa markaad qirtay ilaahay inuu rabbi yahay waxa labaad ee lagaa rabaa waa maxay alistislaam adiga imtixaanka noocii kaaga soo hagaaga wixii maxay igaga waajiba inaad adna istaagto markaa hadday balaayo tahay mushkilad tahay dhib tahay maxay igu waajiba inaan sabro adkaysto warwarka iyo nacasnimada iska ilaaliyo ogaado rabbi inuu isagu dunida maamulo ogaado weliba inuu naxariis badan yaho ii naxariistay ogaado dunuubtaydii tirada badnayd qaar in weliba layga dhaafay ogaado inaan mushkiladaan geystay alla igu wada halaagaynin ee uu ii naxariisanayo ogaado weliba haddaanu noojinayo idan adiga waxa ku saaran yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi warasuulih waar kuwa iimaanka laga helayow ilaahi iyo rasuulkiisa war ha kala hormarina baa la yidhi waاtaquu اllaha ina allaha samiicun caliim falaa warabbika laa yu'minuun xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum ثuma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayt wayusallimuu tasliima iimaan lagama helin amase ma dhammaystirmin baa alla leeyahy subxaanah wa tacaala ilaa iyo wax kasta oo ku dhaca ama ay isku qabtaan ama muran ka yimaado ay adiga xukum kaa dhiganayaan nebiga diintiisa ay ula soo noqonayaan oo weliba baa ilaahay yidhi naftooda wax cidhiidhi aanay ka dareemaynin yacni diintu waa culusta cidhiidhiba aan dareemin waayo wuxuu ogyahay rabbigii dunidan lahaa qaanuunkiisi inuu kaniyey sidii isagu uu ka rabay inuu yidhahdo ilaahay muxuu iga rabaa halay eego rabbigii dunidan iska lahaa ee abuurtay maxaa uu maanta layga rabaa inaan sameeyo halay baadha kitaabku inuu yidhaahdo ninka caalimka su-aasha markaad weydiinaysa waxaad u weydiinaysaa rabbi masaladaas ay haysatee maxaa igaga habboone aan ku idhaahdaa maxaan alle kala hortagaa markaasaa lagu leeyay saasuu nebigu yidhi iyo saasaa ilaahay yidhi wixii ku habboonaa lagu tilmaamaya dabeetana ilaahay wuxuu yidhi wayusallimuu tasliima marka horena cidhiidhi naftooda kuma haysatee wax weydiinta iyo xukumka qaadashadiisa bale waa hoggaansamayaan baa la yidhi idan markaynu inagu ku dhawaaqno raditu billaahi rabba haani اlamri waxa weeyaan waa bilislaami diina waa mowqifkii lagaa rabay mowqifka lagaa rabaa waa inaad islaamnimadana diin ahaan raalli uga noqota qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamaya subxaanah wa tacaala waka'ayin min nabiyin qatala macahu ribiyuun aw qaatala macahu ribiyuuna kahiiru fama wahanuu lima asaabahum fii sabiili اllahi wma ضacfuu wma اstakaanuu allahu yuxibu الصaabiriin wma kana qowlahum
إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. ربي وxuu leeyay سبحaanه وتaعaaلى badana inta nebi qatل macahu ribiyuun أw qaatala macahu ribiyuun inta nebi maciisa ay la dagaal galeen kuwa rabbi loo nisbeeyey ama inta nebi maciisa ay la socdeen ee la leeyay ama inta dagaal gashay kow famaa wahanuu baa ilaahay yidhi may niyad jabin limaa asaabahum fii sabiila wixii dhib ku dhacay ilaahay dartii unugu dhacay ma niyad jabin baa ilaahay yidhi wamaa dacufuu may taag darraynin wama stakaanuu ismay dhiibin baa ilaahay yidhi sifaadka lagu sifeeyey waa maxay dad niyaddu ka xumaatay maaha kuwa daciifay oo marmar uun waxa samaynaya inta kalena iska fadhiya maaha kuwa isdhiibayna iyaga maaha baa ilahay yidhi saddexda sifo midna ma leh wallahu yuxibu asaabiriin rabbina wuxuu jecelyahay kuwa sabra maxay sameeyeen laakiin ma yidhahdeen waa iska alqadaa walqadar oo ma iska fadhfadhiisteen maya ilaahay wuxuu tilmaamayaa haddana warkooda inay iyagu lafahooda dib ugu celiyeen oo yidhahdeen waxaan mashkiladna haysataana annagaynaga timi wamaa kaana qawlahum ilaa an qaaluu warkood ma noqonin baa ilaahay yidhi inay yidhaahdeen mooyaane rabbana اkfir lanaa dunuubana waisraafana fii amrina waa la laayay waa la tubay haddana waxay leeyihiin ilaahay waxaa nugu dhacay waa uun dunuubtaanu geysanay iyo xadgudubyadii iyo annagu weecweecashadayadii ilaahay ow dembigayaga dhaaf bay leeyihin wahabbit aqdaamanaa gomadayadana sug wansurnaa cala alqowmi alkaafiriin inta gaaleedna nooga hiliyo nooga gargaar kadib baa ilaahay wuxuu yidhi maray yimaadeen mas'aladaa inay dib ugu noqdaan faataahum allahu hawaaba addunyaa wa xusna hawaabi alaakhira ilaahay subxaana wa tacaala markaasu wuxuu isugu daray labada liibaanoodba guul adduun iyo mid aakhiro labadaba way heleen yacni alqadaa walqadar bay fahmeen mas-uuliyaadka iyaga saaran bay fahmeen waa la laayo waxaasoo dhan baa lagu sameeyey waxay garteen inay iyagu gefka leeyihin taktiigga inay wax ka bedelaan iyo naftooda dib ugu noqdaan waxay dembiya ay geysteen inuu mashaakilkana ku haleelay kadibna ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala guul adduunna waan siiyey mid aakhirana waan siiyey masalada saddexaad aynu ku soo koobaynayana waxa weeyaan waa bimuxammadin rasuula aw wa bimuxammadin nebiya labada lafdiba waa soo arooray in raalli aada uga noqotid nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu rasuulkii alle kuu iyo nebigiisi uu yahay iyana maxay keensanaysaa waxay keensanaysaa inaad nebi moxamed risaalada u qirto kow waxay kaloo keensanaysaa inaad u qirto ku dayashada dhammaanteed oo maxaa ka ratibmaya waxaa ka ratibmaya islaamka xaalad kastoo aad ku jirto in baa kaaga waajiba yani maxaan uga jeedaa qofka bini aadamka islaamkao dhami korkiisa kuma wada waajib aha masaladaa fahma waxa ku waajiba qadru istiطaacatihi wa taaqatihi inta uu awoodo ee uu tabarta u hayaa ku waajiba waxaa lagaa rabaa markaa nebi maxamedna rasuulnimo iyo nebinimaan raalli uga ahay markaad tidhaahdo inaad garatid nolosha waxa kaaga waajiba iyo cidda aad ku dayanaysid nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo maray iyadoo la daciifsaday oo la tunjaleecsaday oo laga xoog badan yahay iyadoo ninka magaciisa soo hadal qaadaa aanu dhib waayeynin maxaynu shalayta tilmaamnay abidar oo leh inaan cid weydiiyaan ka boqo waxaan daydayey mid aan yaro tunjaleecsadaan arkay buu yidhi markaasaan is idhi kambaan malaa iska daciifa ku sheegay inay kan weydiiy kii markaan ku yidhi maxamed ma garanaysaana waa igu qayliyey buu yidhi waaba lay tubay yacni inaad tidhahda hebel mee waar hebel cid arkay ma garanaysa magaciisi inuu dembi noqdo xaaladabuu ku noolaa wixii raacana la tumayo la garaacayuu soo maray wuxuu soo maray nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam xaalad saxaabadiisu ay dhinac wadhan yihin badhna meyd yihin badhna toorjar ku jiraan badhna dhaawacan yihin wuxuu soo maray iyadoo maxay reer dhan inta la qabta la cadaabayo oo aalu yaasir odaygii iyo islaantiiba sidii loo tumayay ku dhinteen inankiina markii dambe wixii la rabay baa afka ka qirtay isagoo u yimi u yidhi waa gaalnimaa qirtee maxaa fa in caadu faacud buu ku yidhi intaa iska
waa kuu fasaxanta intaasi iskaga badbaad. torture lagu laynayo. wuxuu joogay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyadoo saxaabada badh tortureka marka laga badiyo qofku wuxuu daalaa xadu isdhiibo. bilaal inta cadceedda la dhigo dhagxa la saaro la torturay markay dhibtu ka tiro badato inta xadhig yar lagu xidho ciyaalka loo dhibo la yidhaha magaalada la warwareega. nin weynoo inta la tumay haddana hoggaan yar lagu wado suuq oo la jiijiidayo carruuri jiijiidayso oo lagu qaylinayo lagu buuqayo la turtuurayo. wuxuu soo maray nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam markaan la eryanayay isagaba dilka lagu xukumay ee uu baxsanayay. wuxuu soo maray mar cunaqabatayn dhaqaale lagu hayay oo 3 sannadood ay hargaha cuneen oo waxay liqaan la waayey oo shacbi abi aalib isagiiyo intii la socotay ay galeen. wuxuu soo maray isagoo istay oo xoogaystay oo makadii sidaa loogu waday intuu ka guulaystay le maxaa u malaynaysaa inaan maanta yeelayo, maxaa filaysaan oo la baryayo oo laleeyahay isaga dembiga iga dhaaf. nebi yuusuf sidiisii oo kale yeel isaga wax la weydiisanayo. wuxuu soo maray isagoo loolan ku jira iyo dagaaloo la isriixayo oo maalina la riixayo maalina wax riixayo. wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas isagoo ku jira. wuxuu soo maray isagoo dowlad islaamiya u taliya oo boqorrada dunida waraaqa u qoroo leh islaama waa nabadgelaysaane. awal wuxuu taagnaa maxay heshiisyada qaarkood in magaciisa laga masaxayo markana isagaa intuu magaciisa ku qoro boqortooyinka dunida u dirayoo leh islaama aslimu islaama waa nabadgelaysaane. taa macnaheed waxa weeyaan inaynu inana qiranno nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam rasuul iyo nebigeenni inuu yahay. xaalad kastoo aad ku jirto qaab ood ugu dayata nebi moxamed baad helaysaa. ninka 4 dumar ee cusleeyeenow nebi moxamed 9 buu hayey. dowladna waa ka telinayay, ummadna waa kala xukumayay, isagoo 9 qoys sugayaan iyo beriiskoodii iyo reerahoodii, isagoo biilka lagu haysto oo ilaahay leeyay subxaanahu wa tacaala qul maxaa lagu yidhi nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaad ku tiraa in kuntunna turidna alxayaata addunya waziinataha fatacaalayna umatickunna wasarixkunna saraaxan jamiila. dumarka la hadalo haddaad lacag iyo xooluun doonaysaan anigu waa idin sii daynaya dhe waxaa cuntaanna waa idin siinaya waa idin raaxaynaya. ilaah iyo rasuulkiisa haddaad doonaysaanna iyo maalinta aakhirana tiinnii wanaagga samaysaa la kala dooransiinayo. wuxuu ahaa aabbow ah, oday reera haya, xaasas badan haya, madaxweyne ummadeed oo ummad u talinaya, ciidan sarkaal dagaal gelinaya oo ciidamadiisa wata oo hoggaaminaya, caabid ilaahay u taagan oo cibaadaysanayo habeen iyo maalin si u taagayo gomaddu bararayso, nimaan waxba haysanin oo gurigiisa 2 bilood aan dab lagu shidaynin oo baahi ay jirto, saxaabo dhan iyo dowladda dhan oo dherayba karsan kari weyday, madaxweynaheedii uu la'yay wuxuu karay oo haddana nool aan nolosha isdhiibin. yacni kullu duruufi alxayaa, mid nicmo iyo mid badhaadhe iyo mid laystumo iyo mid la dagaalamo iyo mid la taliyo intaba wuu soo maray. idan qofka muslimkaa maxaa laga rabaa? waxaa laga rabaa inuu yidhaaha ilaahay rabbinimaan u ogolay, raalli uga ahay, axkaamtiisa iyo wixii uu qadi u go-aamiyey iyo diintiisa oo dhan baan raalli ku ahay. 2 waxaa lagaa rabaa inaad islaamnimada diin ahaan ugu dhaqantid wixii adiga markaa kugu waajiba ku saaran, wixii lagugu itixaamay markaasi jawaabteeda inaad islaamka ka raadisid. waxaa saddexaadee ku saaranay waa inaad dariiqaad u maraysaa u noqdaa kii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. oo wax kasta oo dhiboo timaada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam xad buu gaadhay. ilaahay uu leeyahy waimaa nuriyannaka bacda aladii naciduhum aw natawafayannaka failaynaa marjicuhum uma allahu shahiidu calaa maa tafcaluun. haddaanu doonna ba ilaha yidhi haddaanu ku tusinno, haddaanu rabno oo aanu ku tusinno wixii aanu gaalow yabohniyo halaaggii wax ka mida, ama se adiga aanu ku oofsanno, adiga shaqadaada maaha baa ilahay leeyahy. adiga shaqadaadi waxa weeyaan wixii laguu diray inaad qabato. gaalka in la dilo iyo in la oofsado iyo inuu ilaahay balaayo ku riday iyo inaan ku ridin isagaa allay u taallaa baa la leeyahy. ilaahay baa markaa nebigiisi wuxuu ku leeyahay haddaan anigu kuwan halaagayo
adigoo nool oo aad arkaysa halaagooda iyo haddii laba halaagi waayo adigu aad ka horgeeriyooto iyagoo weli jiro iyagu xoogan adiga ay naftuba kaa baxdo fa ilaynaa marjicuhum baa ilahay yidhi dunidan waxaa ka dhacaya anigu bay igu soo noqonayaan anaa maamulaya anaa xukumaya baa ilaha yidhi adiga waxba kaama saaraa anaa xukumaya baa rabbi yidhi uma allahu shahiidun calaa maa tafcaluun waanu arkaya ilaahay waxaa samaynaysa dhanno markhaatuu ka ahaa adiga dhibtuu kuu taal maaha baa ilaahay leeyay inuu hebel wax dulmiyo inay dowlad heble kibirtay inay cidda dhib kuu taalla maaha anaa arkaya baa ilaahay leeyay anaana ii soo noqonaya anaana xukumaya ee isaga maxaa u yaalla waxa u yaalla wixii laga rabay in waddadeeda inuu hayo ha weecweecan adigu jidkaaga hay yay ku fitnayn baa la yidhi walowlaa an habbatnaaka waxaa ilaahay tilmaamaya wax ku aqri inay kuba lumiyaan baad ku dhowaanaysaa haddii aanan anagu ku sugin baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala ilahay inaynu barayno fasbir ina wacda allahi xaq walaa yastakhifanaka aladiina laa yuqinuun rabbi wuxuu ina leeyahy subxaana wa tacaala sabir ilaahay yaboohiisu waa dhab yay ku fudaydsanin baa ilaahay yidhi aladiina laa yuuqinuun kuwaan rabbi qirin yay adiga ku fudaydsanin yay dariiqa kaa weecinin soomaalidu aakhirada markay aad u arki waayaan bay yidhaahdaan ciil rag cadaab waa ku geeyaa wariyuu cadaabku geyna ciilkaa ragga intaad dhaafta adigu janno ku soco xagga janneed adigu qabo kuwan rabbaa u talinaya isagaa ballan qaaday inuu u talinayo isagaa ballan qaaday inuu xisaabinayo isagaa ballan qaaday idan kelmadda aan rabay inaan sheegaan waxay tahay halkan xadiidee nebi moxamed ka sugan calayhi الsalaatu wasalaam ee ahlu sunan in badan oo ka midii soo aroorisay ee lagu tilmaamay qofka la yimaada daaqa طacma aliimaan wajabat lahu اljanna nebi moxamed leeyahy ana zaciimu lah la aakhudan gacantaan qabanaya uu leeyahy xataa udkhilahu اljanna la leeyay yugfar lahu ma taqadama min denbih aw gufira lahu ma taqadama min denbih nebigu calayhi الsalaatu wasalaam 5 mas'ale xadiidkaa uu ka sheegay dembigaaga hore la dhaafayo inaad iimaanka macaankiisii dhadhamisay in janna kuu waajibtay in nebi moxamed gacanta ku qabanayo ilaa uu jannada kaa geliyo iyo maalinta qiyaame ilaahay inuu ballan qaaday inuu ku raali gelinayo qiyaamuhu maalintii hawlka iyo dhibta iyo laga warramayey muxaadaradii hore waxa bale ka dhacaysa ilaahay baa ku raali geliyay ilaahay baa isku waajib yeelay inuu ku raali geliyo waxaasoo dhan waxaa lagu helaa inaad la timaaddo maxay inaad la timaaddo rabbi inaad allanimo raalli uga noqoto radiitu billaahi rabba kelimaad maaha afka laga yidhaahdo ee waa macaani qofku uu dhan xaqiijiyo nolosha ka mida markaa radiitu billaahi rabba ilaahay baan raallinimo uga noqdo raalli uga ahay maamulka duniyeed siduu u wado adduunkan rabbaa iska leh gacantiisuu ku jira isagaana maamula maamulkiisaanaan ku qancay inaad tidhaahdo siduu alla u maamulo dunidatan isagaa xakiimo caliimo khabiiro khibrad badan saasaan ku qancay laba inaad tidhaahdo wabilislaami diinan islaamnimadana diin baan raalli uga ahay oo aniga wixii waajiba i saaran waxaan weydiinaya inu ilahay muxuu aniga iga rabaa masaladatan dhacdadan maxaa aniga iga saaran wixii kaa waajibo in adugu ka samayso wabimuxammadan nebiyan aw rasuula nebi moxamedna calayhi الsalaatu wasalaam nebinimo iyo rasuulnimaan u ogolay oo ah laifkiisa dhammaantii wax kasta oo dhib oo ku haysata manfad baad uga helaysa iyo meelaad kaga dayato isagoo laga xoog badan yuu soo maray isagoo xoog badan buu soo maray isagoo reero badan haya isagoo dowlad isagoo qaadiya isagoo dagaalamaya isagoo nabdaya isagoo heshiinaya isagoo gaalo la kulmaya isagoo la shiraya isagoo go-aamo la gelaya kullu shay taariikhdiisa iyo siiradiisay ku bannaanto ku caddahay xaalad kastoo marka aad ku jirto waxaad helaysaa halkii aad nebi moxamed kaga dayan lahayd waxaan ku soo koobayaa markaa weedhaasi uu nebigu inoo ballan qaaday in lagu liibaanayaan ku dadaalo odhaahdeeda iyo caqiidadeeda iyo ku dhaqankeedaba wallahu aclam billahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullah